qaar ka mid ah mulkiilayaasha iyo dadka deegaanka beeraha isha goobka ee koonfurta magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ka warameen xaaladda isha goobka iyo dadka reer Somaliland ee halkaasi u dalxiis yimaada waxaana ay sheegeen inay isha goobku yimaadaan isla markaana ay u soo dalxiis tagaan dad mas'uul ah iyo qoysas halkaasi u yimaada inay ku nastaan iyagoo iska fogeeyay eedeymo loo soo jeediyay isha goobka dadka bilaadanka noo yimaada waxa weeye dad mas'uuliyiin ah oo nin xaaskiisii caruurtiisii wata dad family dadka sharaftiisa cirdiisa in lagu ciyaarana waa xaraan dad aad u wanaagsan oo mas'uuliyiin ayaa noo yimaada ka kirayna Soomaalidu waxa ku maamada kitaabiga Hargeysa kadinka markaan taaganahay dadka xunxune noo yimaada markaasaan garanaa dib nooga noqdaan waxaana weeye gudida wanaag farida iyo dawladda amba saldhigyada waxaanu la leenahay xiriid wixii munkar amba fawaaxish sameynayno aragno aanu ugu yeedhno qabta dadkii mas'uulka ka ahaa beerahan aanu nay dadkii lahaa baanu nay dadkii dhex joogay baanu nay waxa warbixinta xun ee laga fidiyay meel walba la mariyay anagu shaqo kuma lihin wixii lagu sameynayo si ay dhibaato timid cid walba way timid askar baa timaada wax fawaaxish iyo wax xumaana anagu ma hayno wax lagu sameeyay waanu taaganay ilaa lixdana waanu dareerinaa shaqo cidna kuma lihin dadka xumaanta fidinaya hanaga daayaan baanu leenahay inta ilaahay ka yaabaan oo waxaanay arkayn iyo waxaanay mudan ay fidinayaan ilaahay dadkaasi ha ka baqdo wax lagu sameeyaa ma jirto qoladii beersan lahayd baan anagu nahay intii ilaahay ka sugaysa ilaahay baa leh laakiin waan dambeeyay dhaxalkii aabahay weeye meesho ilaa cimri anigu ilaa waxaan ahay dhow 7 jir baan ahay inta waan joogay dalxiisku wuu iman jiray weligiis lihii tale ingiriiskii waa iman jiray wax dhiba oo beerta lagu sameeyay iyo wax fadeexado lagu sameeyay ma jirto laakiin ninka saaka halka fadeexad ka deeyay alihiisa kala xisaabtay ilaahiisa weyne waaxid qofuur raxiinka ayaa kala xisaabtay nin oranaya beertaasina ku jirta oo indhihiisa ku arkaya ma jirto anagu waxaan leenahay dad islaamaanay dad culimo abaana dhalay islaam ilaahay baanay ma ogolin anagu sina ma ogolin dad is-ereeyada ma ogolin dadka noo yimaada dad nadiif ah nin iyo xaaskii baa noo yimaada laakiin allah ilaahay ha laga cabsado dib ha laga noqo si horna loo dhiman maayo halkan wax laga soo sheegay war ceeba oo qaar rag midiyaha galiyay warka ceebta ah midiyaha la galiyay هودي دad islaamay nahay hal meel islaam leeyahay hada waxa laga ma dhaqmo to qofkuna waxa soo kale markuu sheegayo ilaahay ka baqda fiican waxaan ugu leeyahay halkan naga naqaana ilaa sheekhi laha naqaana ilaa dadkan TV-ga ma ka hadlayay waa dadkii beer meeshan lahaa halka dhibaato kama jirto ceeb kama jirto balaayo lagu ma sameeyo geesta kale gudida wanaag farista iyo xuman reebida iyo xubno kamida dadka halkaasi u soo dalxiis taga ayaa waxay yiraahdeen runtii ka gudahaan gudida wanaag farista xumaan reebista iyo runtii ciidanka oo wada socdaana wixii inta ka dambeeyay way ka hawl galaan runtii siyaabo kala duwan baa laga yaabaa in warbaahinta san ka arkay loo dhigay dad dacayad badan furay iyo dad runtii si kale intaba u dhigay runtii sida loo bumbuuninayana maaha oo runtii anaga xaqaayiq meesha og maadaama uu ilaa habeenkii marka qaar ku gaadhno ilaa 12 ka runtii habeen halka waxaan joognay 12kii marka runtii mujtamaca maalintii inta leega jooga ma joogan gaari iyo 2 iyo 3 iyo waxaan ka badnayn baa runtii habeenkii gooraha dambe ku soo hara intaana guddiya askarta runtii ka soo wariya qofku hawada waa soo bixi kara layda waa soo bixi kara dalxiis meeshu doona waa mari kara isagoo oo islaam ah oo saxa laakiin marnaba inuu maaratay islaamnimadiisii iyo wixii laga doonayay inuu maaratay ka tago ama u bedelo maaha meeshu waa meesha bulsho aad u tiro badan baa isugu timaado dhalinyar leh waayeel leh qoysas dhan oo guuraya oo anigu maanta aan kamid ahay baa jooga waxay ubadkayga reerkayga caruurtayda iyo ehelkayga qayb badan oo kamid ah waa kuwa geedka jooga halkaas maanta ku qada karsadeen halkaas ay dalxiis ku yihiin marka habi ku yihiin aad baan runtii ugu faraxsanahay waxaan halkan runtii guud ahaan u cadeynaynaa bulshooyinka Soomaaliyeed oo dhan in xaruntan ay tahay xarun dalxiis oo bulshada jamhuuriyadda Soomaaliya caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ku nool meel kasta runtii ay ku nool yihiin runtii ay dadku iman karaan ku soo dalxiis karaan la soo dhaweyn doono adeeg kasta iyo runtii facility kasta oo baahan yahay runtii lagu soo dhaweyn doono waxa kale oo runtii bulshada cadeynana warbixinta runtii culimada qaarkood runtii ay baahiyeen oo in warbixintaas ahayd warbixin beena habeeraatay wax fusuq runtii halkan ka dhacaana aan jirin waxa leen in Allah yarsuq ma yasha bighayr hisab ilaahay
qof wala kasta ilaahay wuxuu ku arsaaqay wasiinaya cidna uu soo mariyo marka ilaahay dhulka uu dadka bini'aadanka siiyay oo ku nooleeyay deegayihiin hantidoodii iyo xoolahoodu daaqayo mar haddii ilaahay nimco uga dhigay oo dadku soo booqanayaan imanayaan mawlid maxamed siciid magaalada Hargeysa.